Asalaamu calaykum daawadayaal. Maanta waxaan rabaa inaan isoo khulaasaleeyo filimkan. Waxaan rabaa filimkan inta gula ganin waxaan rabaa inaad ka jawaabtaan actor-kan. Waa actor caan ah, magaciisa saxda inaad sheegtaan. Wuxuuna ku bilaabanayaa wiil yar oo ah wiil aad u waalan oo ku waalan jacaylka aabihiis oo u qabo. Wiilkan waxaa dhalay ninka ugu daajirsan Hindi oo idil. Wiilkii yaraa oo soo ordaya iskoolka ka soo ordaya oo imaanaya maalintaas xaafadda si oo dhalashada ula qaato aabihiisa. Balse maalintaas xaafadda markuu imaano wuu waynayaa aabihiisa wuxuuna weydiinayaa hooyadiisa. Aabe halkoo jiraa hooyadiisa waxay dhahaysaa wuu mashquul badan yahay aabahaada waxaa laga yaabaa inuu ku maqan yahay shaqada. Wiilka yar oo ah mid maquusta ah wuxuuna aadayaa shirkadda aabihiisa si uu soo arko aabihiisa. Mar kale ayuu weynayaa aabihiisa asigoo niyad jabsan ayuu soo baxayaa wuxuu iska soo aadayaa guriga qolkiisa ayuu iska seexanayaa. Balse intuu seexan ka hor aabihiisa ayuu waraaqad u reebayaa inuu jecel yahay sidoo kale oo u hambalyeynayo dhalashadiisa. Intaas kadib waxaa imaanayo aabihiisa hooyadiisana waxay u sheegaysaa inuu wiilka waqti siiyo. Wuxuu galayaa qolka wiilkiisa yaraa aabahan oo arkaya waraaqad wiilkiisa uu dhaafay wuuna akhrinayaa. Balse aabahan oo ah aaba aan jeclayn waxyaabaha maalayacniga waa uu ka soconayaa. In yar kadib waxaan arkaynaa wiilkii yaraa oo horteena ku weynaaday balse anagana aan meesheena lee fadhino. Gabar walaashiisa ah baa maalin waxaa iskoolka kasoo foodeynayo wiilal wuxuuna raacayaa walaashiisa si uu ugu soo aaro wiilashii foodeeyay. Markuu hortago wiilashii foodeeyay walaashiisa waxayna leeyihiin makab baa noo soo wadatay tacbaannimada ka muuqato wayna ku jeesjeesayaan. Aad buu u sii xanaaqayaa wuxuuna soo qaadanayaa qoray AK-47 fasalkii ayuu xabado ku dhex furayaa taas oo sababayso in iskoolkii laga buriyo. Walaashiisa ayaa kasii xanaaqayso waxay dhahaysaa inaad saan samayso ma kuu soo wadan aniga. Waxaa arkaynaa aabihiisa oo aad u xanaananayo falkii oo sameeyay aawadeed. Balse wiilkan oo ah wiil aad u madax adag balse wax kama soo qaadayo xanaanta aabihiisa. Sanooyin fara badan kadib waxaa arkaynaa wiilkii oo sii weynaaday saydigiisa iyo xaflad iskugu dhaceen. Xafladaas oo joogay familkii oo dhan waxaana aad uga xumaanaya aabihiis wuxuuna ku dhahayaa orod saydigaada raali geli. Barbiir oo madax adag wuxuu diidayaa inuu saydigiisa raali geliyo. Madax adeegaasna wuxuu sababayaa in guriga laga buriyo. Sidoo kaleetana wuxuu la kulmayaa saaxiibtiis oo iyadana laga soo buriyo guriga waxayna go'aansanayaan in ay isguursadaan. Balse aabihiisa waa uu ka diidayaa in uu u guuriyo wuxuuna guursanayaa keligiisa. Guurkooda kadibna waxayna aadayaan dalka Mareykanka. Meeshaas bay ku noolaanayaan. Muddo kadib waxaa loo soo sheegayaa in aabihiisa lasoo weeraray kadibna la dhaawacay wuxuuna si dhaqsi ugu laabanayaa dalka Hindiya. Balse oo isbitaalka aabihiisa ku jiray markuu tago waxaa ka hor istaagaya saydigiis oo ka celinaya saydigiisa in uu aabihiisa u galo asagoo diidaya rabshad inay meesha ka dhacdo. wuxuuna u soo baxayaa banaanka isagoo fadhiyo banaanka oo ayna la socdaan xaaskiisa iyo labadiisa cunug oo dhalay. Waxaa u imaanaya adeerkiisa wuxuuna weydiinayaa sababta oo meesha u fadhiyo wuxuuna u sheegayaa wax walba. Intaa kadib wuxuu u geynayaa aabihiisa wuxuuna barayaa xaaskiisa iyo labadiisa cunug. Waxaa loo sheegayaa in shaqaalihii warshadda aabihiisa ay cabsadeen kadib weerarkii aabihiis. Wuxuu tegayaa warshadda aabihiisa wuxuu shaqaalayaasha u ballan qaadayaa inaysan jirin qof kusoo xadgudbi karta warshadan sidii ugu dhaqsiyaha badan in lagu soo qaban doono ciddii ka dambeysay weerarkan aabihiisa. Wuxuu kaloo meesha ka sheegayaa maamulka shirkadda inuu asi la wareegay. Wuxuu sameysanayaa tiim kala shaqeeya ciddii ka dambeysay weerarkii aabihiisa. Wuxuu sameynayaa nin u eg aabihiis wuxuuna baarayaa habdhaqanka aabihiisa si aan looga shakinin. Sidoo kalena waxaa aad looga shakisan yahay dadkii u dhadhawaa oo ugu horeeyo saydigiisa. Maalinta xigta booskiisa waxa uu ku bedelayaa koobigii uu sameeyay. Markuu baxo oo bilaabo shaqooyinkii caadiga ahaa waxaa soo weeraraya kooxdii oo markii hore dilaysay oo soo weerartay. Kadib waxay dilayaan ninkii koobiga ahaa iyagoo u maleeya ninkii saxda ahaa. Markay meydka xaafadda keenaan waxay dhageysanayaan moobeelada dadka dhammaan goobta ku sugan. In yar kadib waxaa la soo wacayaa saydigiis oo ahaa ninkii qorshahan qayb weyn ka qaatay. Wuxuu sheegayaa ninkii la dilay inuusan ahayn ninkii saxda ahaa uuna yahay mid koobiya wiilkiisana sameeyay. Balbiir sidaasuu ku ogaanayaa sirtii saydigiisa wuuna dilayaa.
wuxuuna weerarayaa kooxdii ka dambeysay weerarka aabihiis, waxaana dhex maraya dagaal aad u dheer aanan waxba la isku reeban. Ugu dambeyn wuu ku guuleysanayaa dagaalka, balse waxaa soo gaarayo dhaawacyo aad u halis badan. aabihiisa aad buu ugu xumaanayaa wuxuu sameynayo wiilkiisa. Sidoo kale xaaskiisa ayaa kula dagaalayso dagaalkan oo mar walba ku jiro oo iyadana waqti u haynin, balse uma qabanayo. Wuxuu iska sii wadanayaa hawshiisa, wuxuuna ogaanayaa qorshahan inuu ka dambeeyo qof kale uuna meeshan ku egeyn. Kaamirada waxay u wareegaysaa qofkii ka dambeeyey hawshan iyo qorshahan, waana laadarka ugu weyn ee filimka oo ah qof halis badan, aanan hadlin, keliya wax maqlo, oonan jaxanjax aqoonin. waxaa lagu magacaabaa Abraar. Hadda waxaana la tusayaa Abraar oo iska baashaalayo aroos ku jiro. waxaa loo sheegayaa Ranbir aabihiisa qorshihii lagu dili lahaa inuu fashilmay, sidoo kaleetana walaalkiisa meesha ku dhintay. Xanaaq dartiisa wuxuu arooska dhexdiisa ku dilay ninkii warka u keenay, asagoo wada dhiig ah buuna arooskiisa iska sii wadanayaa. wuxuu aqalgalayaa asagoo dhiig badan ku yaala. intaas kadib waxaa arkaynaa dhammaan wuxuu halhal u dilayaa dadkii walaalkiisa hawsha la waday. Abraar oo ka xanaaqsan dilka walaalkiisa wuxuu soo dirayaa gabar jaajuusad ah, wuxuuna u dirayaa Barbir si uu wax badan uga ogaado. jaajuustii la dirsaday waxay jecel dhaba u qaadaysaa ninkii loo diray oo ah Barbir, waxayna sheegaysaa wax walba iyo qofkii soo diraba. waxay u sheegaysaa Abraar inuu rabo dhammaan inuu dilo cidaada, sababta oo u dilayana waxay tahay cadowtinimo hore ka dhexeysay familka iyo familkiisa. wuxuu u tagayaa awowgiisa wuxuuna ka wareysanayaa xaaladihii hore ee familka. waxaa loo sheegayaa in Abraar uu yahay wiilka adeerkiis, qalad uu horey u dhacayna uu tabanayo. waxaa lagu dhahayaa dagaalka meeshan ku jooji oo iska cafi, balse Balbir wuxuu leeyahay anaga hadaa cafino isagaana cafinayn. Balbir wuxuu weerar ku qaadayaa Abraar, wuxuuna rabaa inuu soo gabagabeeyo, wuxuuna dilayaa dhammaan ciidankiisii, wuxuuna galayaa gurigii Abraar. balse Abraar waa nin horey u baxa oo ma joogo gurigiisa, wuxuu handadayaa xaasaskiisa. ugu dambeyn mid ka mid ah xaasaskiisa ayaa u sheegayso meeshuu joogo. waxaan arkaynaa Abraar oo diyaarad sii raacaya, waxaana soo weeraraya Barbir iyo ciidankiisa. Abraar markuu arkay in la soo weeraray wuxuu go'aansanayaa inuu istaago uuna dagaalamo. dhanka kale Barbir wuxuu arkayaa inuu Abraar yahay keligiis, wuxuu go'aansanayaa inuu la dagaalamo keligiisa, micnaha one by one. ciidankiisa wuxuu u sheegayaa haddii la dilo xitaa inaysan far dhaqaajin. waxay iskaga hor imaanayaan si foolka fool ah, waxaana dhex maraya dagaal xayawaannimo ah. waxay isdilayaan muddo 2 saacadood ah. ugu dambeyn waxaa qoorta laga jarayaa Abraar. Abraarna sidaasuu ku dhintay. waxaa arkaynaa Barbir oo wato mididii Abraar ku gowracay, iyo isagoo wada dhiig ah ayuu guriga kusoo laabanayaa, wuxuuna la kulmayaa aabihiisa, wuxuuna ku dhahayaa dagaalkii halkaas ayuu ku dhammaaday. halkaas ayay nooga eg tahay fiidiyowgan xaqiisa sii una garbaxa asxaabta.